hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane xirsi cali xaaji xasan ayaa deegaanka Yurowe ee gobolka Togdheer waxa uu ka dhagax dhigay taalo lagu xusayo mujaahid xasan Salebaan Weyne. hogaamiyaha ayaa sheegay in taaladaasi ka codsadeen dadka deegaanku inay kala qayb qaataan taasi oo lagu weyneynayo mujaahid xasan Salebaan Weyne. taaladii loogu talagalay ay u qorsheeyeen qolada deegaanku mujaahidkii xasan Salebaan Weyne in loo sameeyo marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagana ha naxariisto deegaanka naga codsaday waxa weeye insha Allah ta'ala waana dhisayna waa kala shaqeyn. geesta kale murashaxa jagada doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliland Maxamed Dhigane oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay hogaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani inay qayb ka noqdaan isla markaasina dhagax dhigaan taalo lagu xusayo Allahu naxariistay mujaahid xasan Salebaan Weyne. hogaamiyaha xisbiga wadani iyo musharaxa xisbiga wadani waanu naga aqbalay in mujaahidka taalo loo dhiso waanu ku mahadsan yahay. waa Maxamed Mataan Gabalaax Maxamed Mooto Ariel TV Burco.